asaasay tan iyo markii la doortay 15 May safarkii ugu horeeyay deegaanada Puntland ku yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe dhanka kale maqaamka soo dhaweynta madaxweynaha Puntland waxay hoos u dhigtay heerkii soo dhaweynta ee madaxweynaha taasoo muujinaysa heerka uu joogo xiriirka labada dhinac diyaaradii uu ka soo degay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lama aysan socon xildhibaano ama wasiiro dawladda federaalka ka tirsan kuwaas oo ka soo jeeda deegaanada Puntland marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Huruuse oo shalay wafdiga madaxweynaha ka soo horeeyay garoonka diyaaradaha magaalada Garowe waxa goobjoog ka ahaa oo ku sugnaa dad kooban oo bulshada qaybaheeda kala duwan ah oo uu madaxweynuhu halkaasi ku salaamay lama socon madaxweyne Deni iyo waliba ku xigeenkiisa markii uu madaxweynaha uu salaanta dadweynaha soo dhaweeyay ka qaadanayay wasiirka duulista hawada Puntland Cismaan Lugator oo Universal TV ay ku weydiisay gudaha garoonka diyaaradaha sababta maqaamka hoos u dhiga soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Puntland waxa ay salka ku heysay ayaa ku jawaabay waa fursad bay u tahay dawladda federaalka iyo Puntland ba safarka madaxweynuhu xilli abaaro iyo culaysyo badan dalku guud ahaan oo ay muhiim tahay maaragtay in waxyaabo badan kulama laga yeesho marka madaxweynaha dee kuma cusba imaankiisu halkan isagoo madaxweynaha in badan buu imaan jiray lagu soo dhaweyn jiray isagana madaxweynahayna waa lagu soo dhaweyn jiray marka maanta waa safarkii koowaad ee maaragtay boqolkiisa maalmood markay dhamaadeen uu ku yimaado runtii ma ogi wax khilaaf oo ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo Puntland madaxweynaha iyo dawladdiisu way cusub yihiin boqolkiisa maalmood baa u dhamaaday marka wax khilaaf aan jira guud ahaan ma ogi laakiin de waa dawladda cusub waa taqaaniin oo dhismay ku mashquulaysaa oo waxyaabo badan bay ku mashquulaysaa marka uu saasa soo gaabisay safarka madaxweynuhu inuu xilligan ku soo bagmee ma jiro wax khilaaf waa jiri jireen khilaafaad dawladda federaalka iyo Puntland ka dhaxeeya khilaafaadkuna ma ahayn wax ku xiran qof kursiga fadhiye waxay aan waxyaabo xagga dastuurka iyo resource-ka qaybsigiisa iyo dhismaha dawladnimada aragtiyeeda ku salaysan madaxweyne Xasanna waa termkiisii waa madaxweynuhu ugu badnaa ee dhisa stateska Soomaaliya marka waa madaxweynahan isleenahay aragtida federaalka wax xambaarsan yahay oo wax khilaaf xagga federaalka kama imaan karo marka khilaaf xilligan taagan ma jiro way hore waxa loo madalsanaa in ra'iisul wasaaruhu yimaado balse Puntland way ka gaabsatay haddana waxa muuqata maqaamka soo dhaweynta in aad u hooseyso Puntland hoos u dhigtay taasoo lama dhigi karo khilaaf waa mid hoos jira runtii ma maqal in ra'iisul wasaaruhu rabay inuu Puntland yimaado ma jirto arintaasi soo dhaweynta madaxweynahana wax hoos loo dhigay ma jiro safarkani waa safar si degdeg ah ku yimi waa safar madaxweynaha laftigiisa aan wufuud ballaaran la socon oo maaragtay dad kooban la socdo marka waa safar isu xoogaal iyo waraysi iyo maaragtay waxyaabaha salka ku haya marka wax maqaamka aan guddiga qabanqaabadan ka mid ahay soo dhaweynta madaxweynaha maqaamka madaxweynuhu waa sareeya waa la soo dhaweynayaa waa madaxweynihii maaragtay waddanka Soomaaliya marka ma jiro arintaas ma jirto intaasi kadib wafdiga madaxweynaha waxa loo galbiyay qasriga madaxtooyada ee Puntland lama aysan hadlin saxaafadda sida awalba lagu yaqaanay madaxda xilliga soo dhaweynta oo ay warbaahinta la hadli jireen Xasan Haykal Universal TV Garowe